weligiiba habeenku ha dheeraadee waa beri uunbaa ku xiga weligaaba noloshu ha kuu dheeraatee geeri uunbaa ku xigta sidaasoo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladdaa barwaaqada ka faa'iidayso oo ilaahay ugu dhowow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iidayso ilaahay ugu dhowow barwaaqada ilaahay ku garo abaarta iyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doono adigana marka bukaan haddaa tahay ayuub baa kuu daliila siduu diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo dhallinyar haddaa tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo oo toddobada ilaahay u hadhaynaya waxaa ka mid a buu nebigu yidhi shaabun nasha'a fii taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro waad liibaantay ogow meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd jannada meel ka fiican may jirtaa waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayoo dhan waa xaalaad bay yidhahdeen eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa al axwaal ilaahay baa keenaya marka axwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeenna Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan reer Hargeysa oo ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka naga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa ta magaalada u ballaaratay madaaristii macaahidii masaajidii ganacsigii da shukriga in la badiyo Soomaa oo ilaahay ku mahadino